ganacsada Jose Antonio iyo Maria Luchan wuxuu ku dhashay May 11 1984 magaalada Fontainebleau ee wadanka Spain. qof kalena ma ahay waa kubad qurxiyihii xulka La Roja ee Spain iyo kooxda Barcelona 34 sano jirka ka haajiray qaaradda Yurub dhawaan Andres Iniesta Lujan. tijaabadii ugu horeysay ee xirfadda ciyaaraha wuxuu 10 sano jirkiisii ku soo qaatay kooxdiisii xaafadda ee Albacete taasoo waalidkiisa ay ku ogaadeen inuu hibo u leeyahay farshaxaminta kubadda cagta iyagoo ku tashaday inay geeyaan meel wacan oo uu ka helayo fursad uu ku soo shacbaxo hibadiisana uga macaasho waxayna ka soo diiwaan geliyeen markii uu 12 sano gaaray kuliyadda soo saarista ciyaartoyda kooxda FC Barcelona ee La Masia oo ay adkeed in wax ka yar 14 sano jir laga qaabilo. ninkan lagu neynaasa Don Andres wuxuu qayb ka yahay tiro ciyaartoy ah oo lagu tilmaamo kuwii ugu qiimaha badnaa ee abid ka soo afraxay maxadka La Masia oo uu sheegay maalintii qoyskiisa ay keeneen in ilmadii ka qubanaysay ee ku saleysneed ka fogaanshiyaha waalidkiisa ay buuxdaafin kartay haddii la hooriyo wabiyada. Lujan Iniesta markii ugu horeysay uu ka soo muuqdo masraxa uu ku timo dhacsaday ee Nou Camp waxay ahayd ciyaar Oktoobar 2002 dhacday oo tartanka UEFA Champions League ka mid ahayd. 2004 wuxuu ka qayb galay hantiyaashii horyaalka Spain ee La Liga ee kooxdiisa Barcelona oo hakii ugu horeeyay uu la hantiyo. waayihiisii ugu wacnaa waxay bilowdeen xagaagii 2006 kadib finaalihii qaaradda Yurub oo bedel uu ku soo galay markii la bixiyay Edmilson kulanka ay Arsenal Barcelona kaga qaaday koobkaasi wixii inta ka dambeeyana idinkaga sheekeyn maayo wuxuu sameeyay Andres Iniesta iyo saameyntii uu ku lahaa kubadda cagta oo badankiin waad ka dheregsantihiin wuxuu ahaa mataankii khadka dhexe ee Xavi Hernandez caawiyihii weeraryahanada Catalonia ugu fiicnaa waqtigaas ee Ronaldinho, Eto'o, Henry, Messi iyo Suarez iyo kuwa kale waana ka caawiyihii Barcelona inuu kula guuleysto 9 horyaal oo La Liga ah 6 koob oo tartanka boqorka Spain ee Del Rey ah 7 koob oo Super Cup-aha ah 4 Champions League 3 koobka kooxaha adduunka ah iyo 3 kale oo Super UEFA Yurub ah. Don Andres marka laga soo tago ninka loogu waco El Cerebro oo la micno ah maskaxdii socotay waa sheerlaha ugu saamiga badan kooxdii uu kubadda ku bilaabay Albacete waana ganacsade leh shirkadda soo saarta cabitaanada fruitska laga sameeyo oo u suuq geysta badeecadeeda bariga dhexe qaaradda fog ee Ameerika iyo bartamaha koonfurta iyo waqooyiga Yurub wuxuuna ugu magac daray gabadhiisa curad ee Valeri. ciyaaryahan Andres Iniesta waa ninka taageerayaasha Real Madrid iyo kuwa Barca ka soo horjeeda ee wadanka Spain ay jecel yihiin dhamaantood maxaa yeelay waa dhaliyihii Goldemanki Isbaanishka ay ku qaaday koobka kaliya ee adduunyada ay ka heysatay sanadii 2010 oo uu ka dhaliyay dhigooda Netherlands ciyaarihii ka dhacay wadanka South Africa waana ka qayb qaatihii ololihii xulka La Roja ay ku qaadeen 3 koob oo isku xiga oo marka laga soo tago World Cup wuxuu sidoo kale la hantiyay 2 koob ee Yurub oo 2008 ay Jarmalka ay ka qaadeen iyo kii 2012 ay ku xasuuqeen Talyaaniga. waa walaalka gabadha lagu magacaabo Maribel Iniesta waana sayga gabadha ku takhasustay qurxinta dumarka iyo ka shaqeynta caafimaadka jirka ee Ana Ortiz oo Catalooniyees ah oo xiriirkooda jacayl uu soo ifbaxay sanadii 2008 balse aqal sameystay 2012 oo guurkoodu ka dhacay magaalo xeebeedka Tamarid oo u dhow Tarragona waana aabba leh 3 caruur. Iniesta Super Andres waa laga xaqirihii biladii Ballon d'Or sida ay sheegtay majalada France laga leeyahay ee bixisa bilada laacibka adduunka sanadii 2010 waana dhaliyihii gool boqol dilihii Chelsea looga ciribtiray semifinalaha Champions League 2008 ilaa 2009 oo malaayiin taageerayaal ah ay halis u galeen kaasoo uu ku sheegay in qudhiisa uu u suuxi gaaray farxad darteed iyo xilliga uu yimid goolkaas oo ahayd waqtigii dhimashada 20 May. Andres waxay u ahayd habeenkiisii qiirada iyo macsalaameynta kooxdii uu dhuuxiisa u shubay kana helay magaca iyo mansabka uu dunida ku leeyahay Barcelona waxaana loo sameeyay dahabigan ah number 8 kii ugu wacnaa 16 sano ugu dambeeyay gobolka Catalonia iyo guud ahaan caalamka sagootin heer sare ah wuxuuna la hadli waayay qiiradii haysay iyo muhibbadii taageerayaasha ay u muujinayeen Andres Iniesta isagoo ilmeynaya ayuuna cod gaaban ku yiri halkan waa meeshii aan imid anigoo yar oo ilmeynaya haddana aan ka tagay anigoo weyn oo ilmeynaya. Andres Iniesta ayaa habeenkii oo dhan ku qaatay waqtigiisa gegada Nou Camp oo uu ku leeyahay jamaahiir aad u jidbaysan Japan Super League ayuuna ku dambeeyaa xilligan hogaamiyihii Barcelona oo daneynaya in halkaas kubadiisa cagta uu ku soo gunaanado.